kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada markale barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee garqaad midia qodobada wararkaanu kusoo qaadan doonana waxaa ugu waaweyn dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxi ka dhacay gudaha magaalada Afgoy ayaa saaka loo qaaday dalkaasi Turkiga oo ay ka mid yihiin injineero Turki ah. dowladda federaalkana waxay wadaa sida aan xog ku helnay qorshayaashii ugu dambeeyay ku aadan maamulka Hirshabelle iyadoona wado sidii loo bedeli lahaa madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle. madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo waliba Puntland ayaa waxay aadamo kulul u soo jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona ku eedeeyay in ay dowladdu gabi ahaanba gabtay waxyaabihii lagu heshiiyay iyo waliba dastuurka dalka. taliyii hore nabad sugidda qaranka taliye Sambroshana oo waraysi dheer bixiyay ayaa waxa uu sheegay ama uu ka hadlay arrimo badan oo ku aadan dhiibistii qalbi dhagax oo mar kale noqotay kiis cusub oo soo shacbaxay isla markaasna waxa uu sheegay in ay ahayd khiyaano qaran. iyo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dalbatay in ay shidaal ka baaraan gudaha Soomaaliya. qodobadaasi waliba qodobo kale ayaan daawadayaal kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta ee war garqaad. haddii aan kulana daawadayaal dhaawacyo ilaa 9 ruux oo 3 kamid ay yihiin injineero Turki oo ku dhaawacmay qaraxii maalin ka hor ka dhacay agagaarka degmada Afgoy ayaa saaka loo qaaday magaalada Ankara ee dalka Turkiga si isbitaalka halkaasi ku yaal loogu soo dhaweeyo. diyaaradda kuwa caafimaadka ah ay leeyihiin militariga dalka Turkiga oo saaga soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa qaaday dhaawacyada 9 ruux oo uu ku jiro taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Haramcad oo lagu magacaabo Fanax. sidoo kalena waxaa ku jira dhaawacyada dad kale oo rayida kuwaas oo iyagana ku dhaawacmay qaraxii ismidaaminta ilaalada eegtay shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgoy. shirkadda dhisaysa wadadaas ee laga leeyahay Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la kulmeysay weeraro uga imaanaya Al-Shabaab waxaana weerarada isugu jiraan qaraxyo miino wadada la geliyay iyo waliba weeraro qaraxyo baabuur lagu soo raray. dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgoy oo meel gabagabo maray ayaa hakad ku yimid kadib markii ay kordheen weerarada waxaana la sheegay in qayb ka mid ah qalabkii lagu dhisay wadadaasi lagala soo baxay. dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay inay ku dadaaleyso ammaanka shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgoy inkastoo sanadkii la soo dhaafay 2 injineero Turki ah lagu dilay qaraxii xooganaa ee ka dhacay Ex-Control Afgoy. inkastoo Turkigu ku dhawaaqinaysan joojin doonin dhismaha wadadaasi oo ay sheegeen in ay u horayaan wax kasta oo ku aadan sidii loo dhameystiri lahaa wadadaas, haddana ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay isku dayaan sidii loo joojin lahaa dhismaha wadadaas oo ay muddooyinkii ugu dambeysay wadeen weeraro isdaba joog ah ay la beegsanayaan injineerada dhisaysa iyo waliba shaqaalaha dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo waliba Afgoy. sida ay xog ku heshay shabakadda garqaad media ayaa waxaan ogaanay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshe ay uga dhaadhicinayso madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Buqaare inuu mas'uuliyadda ka saaro hawsha maamul dhisidda ku wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha. sida la fahamsan yahay qorshahan ayaa aad isugu soo tarayay maalmihii la soo dhaafay waxaana lagu soo waramayay inay jireen kulamo arrinkaasi ku saabsan oo qabsoomeyn kastoo aysan weli jirin wax la isla meel dhigay sidaan xogtu ku helnay. qorshaha dowladda uu majaraha u hayo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay tahay inay door la taaban karo ku yeeshaan maamul u dhisidda Hirshabelle markay ka soo dhamaadaan midda Galmudug oo hadda maraysa marxaladii ugu dambeeyay. dowladda adeegsanaysa xubnaha muxaafidka ah ee ka tirsan wasiiro iyo waliba siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle ayaa wax ka wada howsha guul la gaaro. arrintan ayaa sababi karta sida la sheegayo in bartamaha sanadkan la bilaabo howsha maamul dhisidda Hirshabelle inkastoo waqtigu oo aad u gabaabsi ah loogeen in laga gaarsiin doono ka hor doorashada dalka oo dhici doonta 2020-2021 oo ah dhamaadka sanadkan. ujeedada ay dowladdu leedahay waxay tahay bal yiri in musharaxa taageersan siyaasadooda ay u helaan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxayna awood dheeri ah siin kartaa doorashada la filayo inay qabsanto sanadka 2021. muddo xileedka madaxweynaha ama dowladda Hirshabelle waxaa ka dhiman oo kaliya 8 bilood waxaana la filayaa in lagu heshiiyo dhawaan waqtiga rasmiga ah ee la qashaacin doono heshiiskaasi. qorshahan waa midkii ay dowladdu adeegsatay madaxweyne xafartamihii sanadkii soo dhaafay balse dhawaan ayay ahayd markii uu ka laabtay heshiiskaasi la wada gaaray. inkastoo waqti ay gadaal ah ama waqti dambe uu arrintaas ku dhawaaqay
aysan u noqon mid taageerta xaaf. haddana waxaa la sheegayaa in qorshahaasi uu yahay midka hadda loo soo wado Hirshabelle. ugu dambeyn dowladda ayaana ka shaqeynaysa inay dowlad goboleedka ka hesho taageero buuxda xilli uu muddaxileedka ka haraysan yahay 12 bilood oo kaliya, maadaama madaxweynaha dalka mudane Cabdullaahi Farmaajo muddo 3 sano ay u buuxsami doonto bisha soo socota toddobadeeda ee Febraayo, taasi oo noqonaysa in madaxweynaha ay u harsan tahay kaliya muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay oo kaliya 1 sano, taasi oo ah waqti aad u yar marka la fiiriyo inta ay qaadatay dhismihii maamulka Galmudug oo muddo 8 bilood ah loo fadhiyay deegaanadaasi, inkastoo weli la dooranin madaxweynaha maamulkaasi Galmudug. dhanka kalena madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay kulamo ay muddooyinkii ugu dambeysay ku lahaayeen magaalada Boosaaso ee deegaanada Puntland ay ka soo saareen qodobo warmurtiyeed ka kooban ilaa 16 qodob. labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaas ayaana ku sheegay warmurtiyeed xaafadeedkaasi inay isla qaateen inay isla kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la dagaalanka argagixisada, isdhaafsiga xogaha dhinaca amniga iyo waliba dambiilayaasha. waxayna labada mas'uul ku sheegeen war-saxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacyo hirgelinta nidaamka federaaleynta, waxayna sheegeen in caqabadahaasi ay ka imaanayaan dhinaca dowladda ee federaalka ee Soomaaliya. waxay sidoo kale sheegeen war-saxaafadeedkoodana ku sheegeen in nidaamka dib u eegista dastuurka oo ay wado dowladda federaalka uusan ku dhisnayn hanaankii qabyatirka dastuurka, waxayna ku baaqeen inay ka wada tashtaan dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleed. labada dowlad goboleed ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe inaysan diyaarinin jawiga ee doorasho qof iyo cod uga dhici karo dalka, waxayna sheegeen inaynan laga heshiin sharciga doorashada oo baarlamaanku ansixiyay. waxaa kaloo ay sheegeen in sharciga shidaalka iyo weliba kan saxaafadda ee ansixiyaan baarlamaanka iyo xukuumadduba uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka ee dalka. labada maamul goboleed waxay sheegeen inay cambaareynayaan cunaqabateynta duulimaadidii ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bani'aadinimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda. dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul goboleed. dowladda Soomaaliya ayaana hore u sheegtay inaysan aqoonsaneyn doorashadii dhacday bishii Agoosto ee sanadkii hore ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay in mar kale uu noqdo Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaana waxa uu weli wadaa dadaaladiisii ugu dambeeyay sidii uu dowladda u aqoonsan lahayd isla markaasna loo saari lahaa cadaadis xoogan, balse dowladda ayaa ilaa hadda waxa ay noqotay mid aan wax jawaaba ka bixinin hadallada iyo weliba go'aanada Axmed Madoobe ka soo yeeriya wixii ka dambeeyay markii ay sheegtay inaysan aqoonsaneyn guud ahaanba doorashada ka dhacday deegaanada Jubbaland. dowladda ayaana waxaa laga dharsugi doonaa ama laga warhayn doonaa go'aanada ay qaadan doonto kadib doorashada Galmudug marka ay soo dhamaato, taasoo la filayo inay u soo jeesan doonto dhinacaas iyo weliba Jubbaland, iyadoona la og yahay waxyaabaha ka dhacay ololihii doorashada Jubbaland, iyadoo dowladdu ay gabi ahaanba xirtay duulimaadidii tegi jiray magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland, taasi oo ku sheegtay in ay tahay sidii loo joojin lahaa in Axmed Madoobe uu sameeyo doorasho kushbaah oo low ay dhacday taasi markii dambe. ugu dambeena wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa telefishinka NTV ee dalka Turkiga ayaa ku soo warantay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee Turkiga ku cazumtay inay soo saarto shidaalka ku jira badda Soomaaliya kadib markii xukuumadda Ankara ay heshiis gaas la mid ah oo dhanka badda ah ay la saxiixatay Liibiya sanadkii la soo dhaafay. Erdogan oo mar uu magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kula hadlayay wariyaasha ayaa waxa uu sheegay in Turkigu uu qaadi doono talaabada la xiriirta casuumaad uga timid Soomaaliya, inkastoo aanu faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi. waxaa jira buu yiri dalab inooga yimid dowladda Soomaaliya, waxaana ay yiraahdeen shidaal ayaa ku jira badeena, arrintan taas la xiriirta waxaad ku wada ka wadnaa buu yiri dalka Liibiya, sidoo kale Soomaaliya waad ka soo saari kartaan ayuu yiri Erdogan. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba Kenya uu u dhaxeeyo muran badeed oo dhanka ku aadan xadka ah, taasoo ay taalo kiiska maxkamadda ICJ oo ilaa hadda wax go'aan ka soo saarin.
arrintan ayaana u muuqata mid diblomaasiyadeed oo uu Turkigu ku dhawaaqayo maadaama dalal badan ay hadda u xidhxidheen sidii ay dalka Soomaaliya ugu lug lahaan lahaayeen arrinta ku aadan soo saarista shidaalka oo ilaa iyo hadda la sheegay in goobo badan oo ka mid ah dhulka iyo weliba badda Soomaaliya uu shidaal ceegaago. dowladda Soomaaliya ayaana lagu wadaa inay dhowaan ay u gadagasho shata bixinta shidaalka kaas oo la siin doono shirkadda ku guuleysata tartanka. Turkiga oo ah dalka ugu badan ee gargaarka siiya Soomaaliya kadib wixii ka dambeeyay macluushii 2011 ayaa sanadihii dambe waxa uu xoojiyay saameynta uu ku leeyahay Geeska Afrika si uu uga hortago saameynta wadamada Sacuudiga weliba Imaaraadka ee gobolka. maalmo ka hor ayay ahayd markii injineer u dhashay dalka Turkiga lagu dilay Soomaaliya kuwaas oo dhisay wadooyinka isku xiran Muqdisho iyo weliba Afgooye iyo Jowhar. Turkiga ayaana waxa uu sheegay in uu yahay gacanta koowaad ee Soomaaliya isla markaasna uu noqon doono mid aan dhabarka u jeedinin. intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena. fadlan haddaad tahay daawado nagu cusub fadlan noqo saaxiibadeena markasta nagu xiran isla markaasna subscribe inoo sar janaalka kana mid noqo saaxiibada markasta barnaamijyada xogta ah ee aanu halkani kusoo daawacno. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.